بسم الله الرحمن الرحيم. هدنا إن شاء الله تعالى أنا وجوجنا إسلام مركز كي رعاية الأيتام وجمعية النهرين الخيرية. وحن ورئيس قابل لي لنا معلم كمده معلمين تأردد أقونتها مركز كان وقرينتي معلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقعي ومختار شيخ آدم محمد محمود. هوش عاد قبتاي محيته waxaan saanada dhalinyaro badan oo reer gobolka isku xilqaanay in ay ogoontaan aabahooda dhintay Allah u naxariistay wax ka faala qaada in lahayn xagga waxbarashada aan wixii aan awood leenahay aan uga kaalmayno marka hadda halka aan ka wadno waa waxbarasho ay ogoontaan aan ku kafaala qaadnay waxbarashadaas ayaan siinaa. marka waxaad iiga warantaa qaabka aad wax u bartaan iyo manhajka aad wax ku bartaan. hadda waa asaas waana bilow waxaana barnaa ugu horeyntii raqam 1 2 3 aan wadhignay ugu muhiimsan quraanka alle sidii ay ugu akhrin lahaayeen bitajwiid sidii quraanka alle loogu talagalay ay u sixi lahaayeen waa tan koowaad aan muhiimada aan siinay maadaama ay bilow yihiin. mid labaadna waxaan rabnaa ama aan ku bilownay waxbarasho asaasi ah oo tacliimta ah ama mida ah manhajka maadaama anagu aan lahayn manhaj صح oo noo degsan oo caruurta bi'adooda ku dhisan waxaan u ictimaadaynaa bidin Allah kareem manhajka Saudi Arabiya maadaama uu yahay manhaj diyaarsan oo degsan. ما شاء الله بارك الله فيك. waxa kaloon ku weydiiyay dhibaatooyinka bal waxa nooga taabo dhibaatooyinka aad kala kulantaan barista ciyaalka agoonta. horta midda koowaad ade waa caruur aan aaba lahayn oo haddana ihtimaam saas u weyn aysan helin dhalashadooda laga soo bilaabo ilaa hadda qaar kamida ma fahamsanaba waxbarashada ay qiimaha ay leedahay inay meel iska wareegan ay jecel yihiin in kasto ay iska degan yihiin falillahi alhamdu haddana wax sucubaad ay iska jiri kara. marka wax ma nooga taaban kartaa xagga baristooda dhibaatooyinka iyo macnaha culayska laga kulmo maadaama ay kamid yihiin dad aan wali dugsiyo iyo waxba aan soo marin. waxbarashada waa iska jiri kartaa waxa la yiraahdaa al-jadid shadid sidaas ayaa la yiraahdaa wax kasta cusub way dhib badan yihiin oo ay culays yihiin hase ahaatee juhdi badan markii aan ku bixinay insha Allah waxaan rajaynayaa isku hoggaan waxaan rabaa inaan dadka muslimiinta ogeysiiyo Soomaaliya sidaad ogtiin waxay ka kooban tahay 18 gobol. gobolka Bakool waa gobolka aan laga hirgelin 18 kaasi gobol ee kaliya aan laga hirgelin ilaa iyo hadda inta hadda aan bilownay aan wadno wixii ka horeeyay wax la yiraahdo aytaam kafaala qaadid fikir yimid waqti cusub ama waqti dhow oo dhalinyaro wadankan u dhashay oo Bakool ay maahay hawsha ka soo qaadeen maadaama ay gobolada dhan arrinkaas ay ka jirto ay ogoontaana ay liidato kii da'diisu ay 10 dhaaftay iyo kii ka yarba ay saaqadeen yihiin. arrinkan marka waxaan muslimiinta rabnaa inaan u sheegno gobolkan waa gobolka ugu hooseeyo dhinaca kafaala qaadista ay taamta markii la yiraahdo. marka sida nabiguna uu yiri calayhi salaatu wassalaam nabigu wuxuu yiri ana wa kaafilul yatiimi kahatayni fil janna labadii sifarood ayuu saas u taagay. marka dadka muslimiinta waxaan u sheegaynaa in ay halkaan ay joogaan caruur u baahan in wax loo qabto noloshooda wax loo qabto waxbaristoodana wax loo qabto lagu kaalmeeyo waa sida aad u jeediin oo haddaba maxay ahayd aad u jeedaan oo arkaysaan waxay rabaan kafaala qaadis kulliba dhalinyaro Allah khair ha siiye ee gobolkan ka tirsan gaar ahaan magaaladan Xudur ayaa iska hel saaray in ay dadkan meel isku keenaan haddii aan la garab istaagin oo aan looga kaalmaysan dadka dibadda jooga iyo dadka gudaha jooga intaba waxa weeyaan hawshan ma suurtagelayso insha Allah inagu wixii karankaya waxaan isku dayaynaa inaan ku dadaalno oo wixii barashadooda iyo maxay ahayd aan ku dadaalno ayaan rajaynaynaa. dadka muslimiintana waxaan ka codsanaynaa inaad aragtaan oo aad ku soo fiirsaan il raxmo sidaas ayaad idinkuna aad ku noqonaysiin sida nabigu uu sheegay kahatayni fil janna wa jazakallahu khayran. بارك الله فيك. su'aasha ugu dambaysa aan ku weydiin lahaa waxay tahay maxay kula tahay rajadaada intay la eg tahay aad ka leedahay markaskan oo kobaciisa iyo horumarkiisa. rajada 100%
inuu kobcayo waa ila tahay shardi haddii la helo shardigaas uu yahay al-ikhlaas camalkaas la sameynaya in allah dartiisi aan u qabanno oo dadka muslimiinta aan ku rajaynayno ugu garab istaagaan waxaa la yiraahdaa ma kana lillahi dama wattasal wama li ghayri llahi inqata'a wanfasal marka arrinkan waxaan rajaynaynaa markaan fiirinay sida ay hawsha inoogu fududaanayso waa arrin allah dartiisa aan u qabanayno insha Allah ta'ala ilaahay bana ajr weydiisanaynaa waana u istaagaynaa allahna waxaan ka rajaynaynaa 100% inuu noo hergeliyo arrintan oo ah kafaala qaadista ay taamtaan gobolka Boqol oo waliba gaar ahaan haruntan ay ku taalo magaalada Xudur waxa codka oo soo jeedin lahayd adiga xaggaaga codsiga aan soo jeedinay waa mid hadda aan soo sheegayay dadka muslimiinta ah waxaan ka codsanaynaa in ay taamtaan ay bi'ayn rahma ay ku fiiriyaan oo la iloobay oo laga dhigay nafyan mansiyan waxaan rabnaa in ay bi'ayn rahma ay ku soo fiiriyaan watan ay u jeedaan ay arkayaan kafaala qaadis xagga nololeed iyo waxay u baahan yihiin waxbarashadooda بارك الله فيك halkaas ayaan kusoo gabagabeynayna wareysigii gaabnaa oo aan la yeelanay الأخ Sheekh Mukhtar oo kamid ah macallimiinta duruusta ka wada markaska ay taamta magaalada Xudur ay gacanta ku hayso jamciyada Nahrayn al-Khayriyah وعلى هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته